فاهم محمود ديريه meeshaan laga shaqeynaya la taagan yahay waa xaafadda Israac togi xaafadda Israac togan waxa laga shaqeeyay tiro ka 3 jeer oo ay ka shaqeeyeen dawladda hoose oo ugu horeeyay xoghayaha iyo agaasimaha waana markii afaraad oo ka shaqeynayaan guddiga xaafadda mar walbana qashinkiisa soo noqonaya oo laga dhigaya haddaanu nahay guddiga xaafadda waxaanu ka codsanaynaa dawladda hoose in qashinka maanta laga nadiifiyo oo laga dhameeyo maadaama anagu isxil saarnay oo aanu nahay guddiga xaafadda in laga dhameeyo qashinka oo laga dhameeyo toga la cadeeyo kadibna naloo asteeyo meel qashinka la dhigo naloona qabtanin ilaaliye qashinka oo dawladda hoose ay siisay mushahar waxaan ka codsanaynaa qashinka laga nadiifiyo maxay ahayd god aanu geyno meel loo asteeyo maxay tahay aanu geyno waxaan ka codsanaynaa oo kale in shaqaalaha oo ilaaliye togaas inay maxay hayto noo mushaariyaan oo maxay hayto halkaan noogu diraan in annaguna ninkii aanu la nimaan annaga keensanayna loo mushaariyo wax togaas waxa hawshaas maalin walba soo noqonaysa in gacan la siiyo baan rabnaa maanta waxa laga shaqeynayaa xaafadda Israac muhiimadda ugu weyn waa noo ahayd in maanta xaafadda laga shaqeeyo aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa madaxda degmada dhamaantood waad arkaysaan maanta iyo shalay iyo daraad ugu yaraan muddo isbuuca hadda laga shaqeynayaa xaafadda Israac xaafadda Israac ma yaro waa weyn tahay waxaan u baahanahay waxyaabo badan oo naga maqan in lagu tixgeliyo hadda marka saa looga shaqeeyo nadaafadda laga shaqeeyo waxaan u baahanaynaa ilaa iyo 3 waardiyo oo halkaan loo dhigo nadaafadda qashinka qof alaal qof keenaya meel loo asteeyo oo qashinka loogu yimaado waxaan kaloo leenahay dadka qashinka magaalada intee ka soo qaadan halkaas keenayo ayagana waa inay ka feejignaadaan anigu hadda wixii ka dambeeyo waardiyahaas waa adkeenaynaa waana la shaqeyn doonaa degmadana sidoo kale ayadana waxaan aad ugu mahadcelinaynaa maadaama maanta culeyska ay noo saareen xaafadda nadaafadeeda waa ku mahadsan yihiin aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa god baa la sameynaya waxaan rajaynaynaa godkaas in lagu shubo qashinka lagana qaado hadhow waxaan bulshada reer Garowe u sheegayaa nawaaxiga togan degan inay mamnuuc ka tahay in togan lana dego qashinna la dhigo waa mamnuuc waxaan kaloo u sheegaynaa bulshada Garowe qaafaan xaafadda Israac inay ilaashadaan togooda inay ilaashadaan sababta ay tahay lambar 1 way cudurka lambar 1 iyagoo ku dhacaya iyagoo ka bilaabaya hadhowna magaalada dhan buu saameynaya waxaan codsanaynaa gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa xaafadda Israac marka aan dhamaystirno meeshaan oo nadiif aan ka dhigno kilin aan ka dhigno in la ilaaliyo oo waardiyaha ay keensadaan uu noqdo mid joogto ah iyo iyaguba waxaan rajaynaynaa in laga wada shaqeeyo horumarinta caasimadda qaas ahaan dhinaca nadaafadda cid kasta oo shaqo ku leh inay ilaaliso kuwa qashinka qaada waxaan u sheegaynaa inaadan togu uu mamnuuc ka yahay qashinka ka yahay insha Allah hadii la haydmo cidii lagu arkana lagala wareegi doono qalabkeeda iyadana la ganaaxi doono lana xiri doono insha Allah hadii la haydmo saakin meeshaan aan taaganahay waa toga xaafadda Israac mara waa toga dheer intaan hadda anigu shaqadan xilka hayay waa markii afraad baan u maleynayaa maanta aanu nadaafadda toga aanu ka qayb qaadano weliba ka dhamaystirnay iyadoo aan xataa xaafadaha aan saakin sida uu egyahay waa aragnaa meelaha magaalada hadda qashinku kaga haray ay ka mid tahay meeshaani waxaana keenay inaanu saakin waxa ka muuqda ee falxumada ah inaanu ka dhamaystirno oo ka dhigno sidaan horey uga dhigi jirnay toga xaafadan oo haatan gudoomiyaheedii halka taagan iyo guddigeediina waa uga mahadcelinaynaa shaqada wanaagsan iyo la shaqaynta ay kala taagan yihiin annaguna inaanu xaafadda nadaafadeeda iyo kala shaqayno oo kala qayb qaadano mas'uuliyaddeeda ay ka mid tahay waxaan leeyahay gudoomiye saakay xaafadaada codsigeedana waa aqbalayna qashinka hadda togaygii yaalana waa idinka dhammaynayna meel aad qashinka lagu guro oo hogana waa idin astaynayna oo toga dhexdeena aad idinka astaynayna laakiin waxaa la rabaa ninka waardiyaha inaad keensataan na waa idiin qoraynaa mushaarkan annagaa geysiina waxaa laakiin idinka laydin faraya inaad ilaalisaan toga godka qashinka loogu talagalay oo laydiin samaynayo meel aan hayna inaan la dhigi karin ciddii haatan xadgudub idinku samaysana
inaad nala soo xidhiidhaan in talaabada ku habboon annaga ka qaadeen taa intaasaan ka leeyahay shacabka reer Garowe waxaan ugu baaqaynaa waan aragnaa togaan dhexdiisa marar badan baanu waxaanu ka duminay dayrar ilayaal iyo dhagxaan la dhigtay saake waxaan u ballan qaadanaa qashinkan haddaan dhammaystirno qashinka inaanu ku dari doono waxa dhex yaal tog oo dhagax leh oo ilayaal leh oo dhismayaal leh meeshaani waa togi Garowe cillay ma jirto cid sheegan ka dhaana ma jirto ninkii danaynaya inta aanan soo gaarin kaambeenkan waa soconaya waana dhammaystiraynaa bari waa jamcaha laga shaqeynayo laakiin sabti iyo axad waxaanu jecelnahay hadday sabtida noogu dhamaatana inaanu wada xaaqno cidii danaynaysa bari jaaris bay haysataa inay ka qaadato waxa agab ka yahay cidii ka qaadan weynana waxaanu arkaynaa inay ka maaranto ayadana waxaanu leenahay inta waxaanu ka samayn doonaa allaha awoodda leh hadduu ogolaado toga dhinaciisa kalena isla xaafadda israac ma waxaa la rabaa qof kale inaad keentaan isagana mushaarka dawladda hoose kaga bixinaysa in la ilaaliyo toga nadaafadiisa meelaha laydinku asteeyo qashinkana haddii allaha awoodda leh in la dhigo cid sheegan karta dhulkaan oo leh ma jirto wixii ka soo siyaadaan inaad nala socodsiisaan hadday cidi isku daydo dhisme inay ka wado hadday cidi dhagax ku degsato hadday cidi qashinkeeto ay idinka amar qaadan weydo annagana soo gaarsiiyo haddii allah awoodda ogolaado idinkana intaasaanu idin leenahay guud ahaan iyo gaad ahaan shacabka reer Nugaaleed ama reer Garowe waxaanu ka codsanaynaa maanta nadaafaddu waxay ka hadhay oo ku hadhay oo kaliya qashinkii maanta wuxuu ku harsan yahay waa toga magaalada sida laga dhigo waad aragtaan nadaafadii magaalada waa soo noqotay hadday inaynu ka wada qayb qaadano dhammaanteen inaynu isgarab istaagno qashinkana inaynu ilaalino